ولي rag kula dagaalamayay intaad ka guuleysatay jaandheerta ma ku dul tumatay xaaladda jaandheerta la tumanaya maanta waxa weey waa xaaladii ciidamada madaniga ah warjeclo oo garabsanaya ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland xaaladii maxay dhahdaaye dhul bahante waatan tolaayay war caruurtii yarayd 18 jiradii ayaa lagu soo daabulaya waraado ayaa lagu soo daabulaya bal waa kuwan ilaa tolaayay subhanallah maanta deegaanadii la isku farasaaray ee isku farasaareen ciidamada ururiska ay harti daarood iyo maxay dhahdaaye ciidamada madaniga oo kaashanaya kuwa qaranka waxa ka dhacday niman habar jeclo aqoon ayaa yiraahdo hadalada qaar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يرسول هذا ما أنتم واحد نهالكن كجهل دونا مقال كينا واحد نفوق على دق دونا صدح قضب أيه نفوق على دق دونا قضب كوكوات واحد نكدق دونا جوشي أي كسوهين عيد مدني جاي خبر شعره SSB جوشي أي كسوهين بقدر كين ميجاجل إلى ييلي guusha ay ka soo hooyeen baynu qodobka koowaad ka dhigi doonaa qodobka labaad waxaynu ka dhigi doonaa khasaarihii aan wali dad Soomaaliyeed gaadhin ee maanta gaadhay huwantii ciidamadii la isku soo ururiyay ee la baxay harti daarood ay dhaahdo daaradweyne ay dhaahde ciidamadii la isku soo ururiyay ee xaabada looga dhigay deegaanada ay ciidamada madaniga habar jeclo gacanta ku haystaan qodobkeena saddexaadna waxaynu ka dhigi doonaa qaladkii maanta ciidamada qaranka Soomaaliland ay sameeyeen markii tikniko ciida ka badan guumeys ay ka dhaqaaqday ay ku dhaqaaqeen ciidamada madaniga habar jeclo haddaba waxaynu ku horeyn doonaa guushii ciidamada madanigu ay soo hooyeen iyo qayb kamida iyagoo oo garabsanaya ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta hub waa qabteen ciidamada Soomaaliland iyo ciidamada madaniga waliba ciidamada Soomaaliland dhaahdo aad bay ciidamada Soomaaliland ugu yaraayeen hal guutana may dhanayn intii maanta dagaalka caawinaysay ciidamada madaniga habar jeclo waayahay haddaba khasaaraha huwantay taana u gelin waxaan leeyahay maanta khasaaraha ugu weyn ee huwanta gaadhay waxa weey waa dhimasho iyo dhaawac iyo magaaladii laascaanood inta la gaadhay yogoori maxay dhahdaaye talaagadaha waxa ku leeyihiin talaagadaha lagu guro dhiigaga noocyadiisa kala duwan war talaagadaha lagu guro war ma garanaysaa maanta nolol kuma noolin maanta saxaafadoodii beenta waxa weey waxay naga horeeyeen bahasha beenta saxaafad nagama horeeyaan balse beentay naga horeeyaan saxaafad cid walba waa leedahay cid walba qof wax baray way leedahay ama qof wax yiraahda oo war soo tabiyo way leedahay balse iyagu waxay ku raqdigeen been aan geed haysan bay ay sameeyeen mar walba waxaan leeyahay marka maanta ciidamada madaniga habar jeclo meel la gubalay waxa weey waxay soo wareen dhuqbarkeen bay soo wareereen ugu dambeyn yeeyla la galay markii dambe deegaan wax yar u jira maxay dhahdaaye buuhoodle oo meegaagla la yiraahdo hal deegaan haday dhaafaan marka dambana toos bay ula wareegayaan buuhoodle waxa weeyeen meegaagle maanta iyadoo meegaagle ciidamada habar jeclaaba ciidamada madaniga xagga ay ka joogaan oo haystaanba oo la wareegeen qaybaheegii kala duwanaa waxay yiraahdeen intay midub life soo galay gudmay waxba kama jiraan hadda waa laga saaray oo magaalada dibadeeda ama magaalada magaranaysa barigeeda ay igu joogaan ciidamada madaniga habar jeclana waxay bay ku sugeeyeen deegaanka meegaagle bartakiisi bay ku sugeeyeen waxa weeye haddaba Facebook aniga qorayna bartana soo dhig lahaay wax badan bay ka sameeyeen waxa weeye waa kuwii deegaanka dhuqbarkeen degmadii yareed dhuqbarkeen waa kuwii gubay guriyaha habar jeclo waa kuwii gubay waxay yiraahdeen ciidamada madaniga habar jeclo SSB waxay yiraahdeen haddii aad gubteen annagu waanu ku dhexsaahanaa bay yiraahdeen waxa weeye gubi mayno dhul aanu leenahay idinku waad gubteen dhuqbarkeen balse annagu yeeyile gubi mayno ee toos baan u deganaa sidii magaalooyinkii hore
ama degmooyinkii hore ama tuulooyinkii hore aan idinkala wareegnay wanay ayaan meygaaglana idinkala wareegaynaa iyagoo sidaa leh oo guryahoodii bal ku dhex raaxaysanaya in yar waa kan eeg waxaan leeyahay markaa muuqaalka hadalkiisu waa muuqaalkii ay maanta ciidamada madanigu ay ka soo duubeen deegaanka meygaagle ay ka soo duubeen markii ay galeen iyagoo dumarkoodii iyo magaranaysaa dhiirigeliyaashoodii magaranaysaa wata kolkaa waxaan leeyahay nimaan habar jeclo aqoon iyo ciidamada madaniga ee habar jeclo ayaa yidhaahda hadallada qaarkii ama sameeya beenaha qaarkii qodobka halka aan kaga gudbo qodobka labaad waxaan ka dhigayaa khasaarihii maanta gaadhay waxa weeye maalintii hore waxaynu ogeyn in wiil yaroo hargaantii darwiish la yidhaahdo oo turkiga uu farmaajo ku soo baray uu magaranaysa dhulbaxanto wax u soo baray uu maalintii hore ku dhintay dagaalkii maalin kasta dad muhiima saraakiil muhiima dad magaranaysa maalin kasta deegaanadoodu wax u tiri lahaa hadday ka dayn lahaayeen dagaalka ayaa maalin kasta ku dhinta saraakiishana ka mid ah waas hogaamiyaasha ugu sarreysa huwanta weeye waxa shantan waxay kala yihiin mid baa mareexaana mid baa majeerteena inta ugu badanna waa dhulbahanta maalin kasta waxay ka dhigaan dadkooga ugu haldoorsan saraakiisha ugu haldoorsan maalin kasta waxay ka dhigaan xaabo waxay ku odhanayaan waa shahiid ma garanaysaa hadduu shahiid yahayna uma baahno looma tacsiyadaynayo waa geesi dalkiisa u dhintay waa geesigaa dalkiisa u dhintay ka dilayna muxuu noqonayaa ciidamada madaniga habar jeclo kaasna muxuu noqonayaa bal ka soo jawaaba annagoo naga cilmi badantiin fahankiina faan ka batay waxaad leedihiin waa sheebil waa shahiid waa geesi ma garanaysaa haddana uma tacsidanaysiin tacsidu waa wax muhiima haddii uu qofku dhiiggiisii uu kuu huray iyo naftiisii uu kuu huray waxa weeye tacsida inaad kala baqayshaa waxa weeye waa baqaynimo halkii ugu dambeysay waana gunnimo halkii ugu dambeysay gunnimadaana huwan baa taqaanaa cid kale ma taqaano markaa waxaan leeyahay waar dadkanaad xaabada uga dhigasiin inamada yararee caana maraaciga eed maalin kasta xaabada aad uga dhigasiin si aad deegaano cusub aad uga qabsatiin habar jeclo wallay ka tahe waxa weeye maanta deegaanadii buu hoodle ku dhawaaba haddii ay qabsadeen waxaad rabtiin maxay tahay waxaan leeyahay markaa waar tacsidu muhiim weeyi iska soo tacsiyadeeya qofku naftiisu idiin huray siduu naftiisa idinku huray bal idinkuna tacsida iyo ducada ma garanaysaa ilaahay inuu janno geeyo uun ugu duceeya wax kala garamayno kolkaa waxaan leeyahay maalin kasta xaabada aad ku guranaysiin waxa weeye idinkaydii taalla wixii kale ma garanaysaa ciidamada madaniga habar jeclana waxaan leeyahay waar xaabaa laydii soo sidaa idinkuna dabkii baa tiigna ololiyo muhiimaddu taa weeye haddii ay maalin damba tallaabo soo qaadaana waxa weeye waxa ballan ilaahay ay ku gareen waxay ballan ilaahay ku gareen afhayeenka ciidamada madaniga habar jeclo wuxuu ballan ku galay inay laga qixi doono buuhoodle lana wareegi doonaan noqon doontana magaalo habar jeclo waayahay qodobkaa isagana halkaasaan kaga baxayaa iyo inamadaa yaryar ee dabka lagu shiday ee aan meel haysan ee mustaqbalkoodii iyo ma garanaysaa naftoodiiba lagaga ciyaaray qodobka saddexaad oo ah qodobkii maanta ciidamada madaniga habar jeclo ay halis ku galeen waxa weeye nin waxaan idin tusi doonaa guumays buu joogaaye waxa weeye guumaysigaan odhan wuxuu joogaa dhuqbarkayn halkii ay gubeen markii laga saaray niman halkaa ku sugan weeyaanoo furinta jooga waa soo hadlay 9 tiknika oo hubka kala duwan noocyadiisu kala duwan ay saaran yihiin ayaa maxay dhaxday ka soo baxay guumays ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa daawanaya war waxaan leeyahay haddii iyagu ay isku soo gurmanayaan ciidamada habar jeclana waxa weeye ciidamada madaniga habar jeclana waa dad la deegaameeyay ama ma garanaysaa ciidamo bari dhoweyd la qori weeye haddii ciidan ku xoog badan labada dhinac baa lagaga dhuftay waxa weeye haddii maanta ciidamo ku xoog badan ay yimaadaan oo gurmad ka weyn yimaado ciidamada qaranku waxay qabanayaan maxay tahay waxa weeye ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa loo baahan yahay
haddii markuu ka qarxo dhuqbarkeyn iyo yeyle iyo meygaagle markuu dagaalku ka qarxay maxay deegaanka guumays iyaguna u weerari waayeen su-aashaan isweydiinaya taa weeyi haddaba hadalka ku dheeraamaaye bal waxay noo sharaxayeen nin mas-uulo halkaa ku sugnaa furinta dagaalka ku sugnaa bal waa kane aniguna waxaan hagaajintayda iyo dhaliiliga ma aha waxa weeye dhaliishaydan waa dhaliishii magaranaysa wax dhisaysay waxna toosinaysay kolkaasaan balintayda ku darsan doonay bal ninkan ileega dabarjibinta ugu xoogay maanta waxaynu ka tahay meesha la yidhaahdo guumays sagaashan gaari baa kasoo dhacaaday guumays nimanka anagoo jiirafta ka xadhanay sagaashankii gaari weerarkii ciidamada qaran markiiba telefoonka loo soo qaaday waxaa loo keenay ninkii meesha haystay cali bare ninka doolaa la dhahaan ciyarku celinayay waxaa lagu gurmadku waa ku dhaqaaqay nimanka soo fadhiyeen guumays ku horfadhiyeen ascood naga ilaalinayay waxay ku dhaqaaqay nimankaa gurmad bay yihiin gaari ma dhaqaaqo nimanka meesha haysta cali bare iyo doolaalba inay hore habar jeclaadaan kii taliya ahaa maanta dhigeedha ku fujiyey halkaa barkadaha waayahay haddaba intaan kaga imaado wiilka hadalkiisa waa wiil habar jeclaa oo ka tirsan ciidamada madaniga ah ee maalinta dhaweyd la qoray weeye waxaan leeyahay haddii maanta uu yidhi labada dhinac 90 tiknika ah ama 90 gaadiida ayaa ka dhaqaaqay mar kaliya guumays cidi kuma hadhin waxa weeye guumays cid ku hadhay haba yaraatee ma jirto raggaas xitaa waxa shacabna ma degana haddii guumays ay sii qabsan lahaayeen waxa weeye dagaalku ballaaranaya waxa uu noqonayaa 4 furinoodna waxaan jecelahay huwantu wallaahi billaahi inayna ma garanaysa buuxin karin laakiin iyagu huwantu waxay ka dagaalami karaan oo weliba nafla orod iyo nafla caarid ay ku tahay waxa weeye waa hal furin ayay ka dagaalami karaan haddii uu dagaalku ka qarxo maxaa dhuqbarkeyn yeylana waa kii ka qarxay maskax buqlana uu ka qarxo guumaysna uu ka qarxo heli maayaan gurmad u soo gurmada oo u hiiliya ma garanaysaa ama dhaawacyada gurta sidaana waa lagaga guulaysan karaa kolkaa waxaan leeyahay wiilkani sidan uu inoo sheegay waxa weeye waa gaf ma garanaysaa iyo dhabarjibin ciidamada madaniga habar jecel oo rahmi weeye kolkaa waxaan leeyahay haddii ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland ay ma garanaysaa lugaha lagu dhagan yahay war ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland dadka ka taliya ama dadka madaxdeeda haysta warniyo waxaan leeyahay ciidamada habar jecel guulay soo hoynayaan deegaanadooda iyo dagaalkana daacad bay ka yihiin ku garab istaaga huwantuna waxay u baahan tahay 3 furmood oo kaliya haddii lagu furo wallaahi inay hal gurmad soo gaadhay hal gurmad hadday hal meel u soo gurmadaan meesha labada meelood kale wax gurmada kama heliyaan sida labada ma garanaysaa labada furmood kale marka cagta la soo mariyo meesha kaliya isku soo xaraana waa laga babin karaa waana laga eegi karaa sidaas aan laga guuleysan karaa waxa weeye maanta de ciidamada madaniga ciidamada Soomaaliland oo qaarkood iska rabsanaya maanta guuli kama maqnaa balse haddii ma garan 3 furimood dagaalka laga dhigo waxa weeye wallaahi billaahi huwantu waa jabayaan mar dambana wuxuu la yiraahdo iyo dad isku soo bahaystay laascaanood oo harti daarood la yiraahdo jiri maayaan kolkaa waxaan leeyahay inuu dagaalka daacad laga noqdo inaad daacad dagaalka noqotaa waa muhiim inamo dhiigood maalin kasta ay shubaan ama naftooda ay huraan oo maalin kasta dadka qaarna uu dagaalku daacad ka yahay dadka qaarna uu dagaalku daacad ka hayn waa wax laga xumaado waxa weeyaan ciidamada qaranka waxa leeyahay waa ciidamada madaniga idinkoo kaashanaya huwanta weynaynu xaq marina waa in la waayo wax uu leeyahay waxa weeye saaxiibayaal inta muuqaalka mid ku kulmi doono sida waxaan ka tagay. Assalaamu calaykum.